السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada YouTube-keena Albashiir oo ah YouTube waxbarasho ama channel waxbarasho lana soo dhigo cashiro free ah oo luqadda Englishka iyo computerka ah. Hadday tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqato channel-keena, subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada mustaqbalka aan soo dhigi doono. Haddii aad subscribe dhahdana aad u mahadsan tahay. waxaan ku guda jirnay casharadeenii computerka oo aan ku baranaynay barnaamijka MS Word oo ah barnaamij qoraalka loo isticmaalo. waxaan cashirkeenii kan ka horreeyay kusoo qaadanay wax la yidhahdo font formatting ama farta si wax looga bedelo. maanta waxaan qaadanaynaa wax loo yaqaano paragraph. paragraph maxaa waaye marka? paragraph waxaa waaye hadalkii isku xiran oo kooxa oo intaan oo kale ah waxaa la yidhahdaa paragraph. marka wuxuu leeyahay waadka qayb dhan oo loogu talagalay in laga maamulo wixii paragraph ah ama wixii hadal tiro badan oo isku xiran ah. hadday tahay hadalka meesha yacni qoraalka warqadda oo ka bilaamayo, qaabku u ekaanayo iyo wixii lamid ah. Okay, sidaa ujeedid halkan oo kale waxaa ku qoran paragraph ku qoran. haddaan kuu soo dhaweeyana halkan oo kale waxaa ku qoran paragraph, halkan waxaa ku qoran font. dabcan marka font waa kasoo baxnay, hadda waxaan ku jirnaa paragraph aan ku jirnaa. Okay, paragraph marka qaabka u shaqeeyaan ogaanayna. paragraph waxaa ku jira dhowr waxyaabo oo isku darsan. kow waxaa ku jira wax la yidhahdo bullet oo loogu talagalay in lagu sameeyo wixii tax ah ama listi ah. sidoo kale waxaa ku jira wax la yidhahdo order oo loogu talagalay wixii kala horeeyo oo number ah in lagu sameeyo. sidoo kale waxaa ku jira qayb la dhaho current list oo loogu talagalay wixii liis hoos imaanaya in lagu tiriyo. marka sidoo kale waxaa ku jira wax la dhaho alignment. alignment waxaa laga wadaa qoraalka meesha uu dhigmaayo, oo qoraalku bartanka ka bilaamayaa ma dhexda ka bilaamayaa. Okay, waxaan ku hormaraynaa alignmentiga. marka tusaale hadda meeshaan cashirka shanaad aa noogu qoran. cashirka shanaad waxaan rabnaa inuu ka bilaamo qoraalka buugga pageka dhexdiisa inuu ka bilaamaan rabnaa. Okay, hadda wuxuu noo saaran yahay qaybta ugu dambeysa oo la yidhaahdo left alignment. tan oo kale haddaan keenno waxaa loo yaqaanaa center alignment oo qoraalka dhexda ayuu kusoo aadami doonaa. tanna haddaan keenno waxaa loo yaqaanaa right alignment oo qoraalka wuxuu tegi doonaa dhinaca midige ee warqadda. Okay, haddaan rabno hadda marka ciwaankan inaan dhexda keenno waxaan dooran doonaa center alignment yaa dooran doonaa. hadda center haddaan dooranno cashirka shanaad dhexdu kusoo aaday, waana sida loo baahan yahay markii ciwaan la sameynayo inta badan dhexdaa lagu soo aadiyaa. haddii aan right oo kala dooranno meesha ugu dambeedu tegi doonaa. dabcan marka waxaa saxa inaan center dooranno. center aan ka dooranaynaa, dhexdaana ku aadinaynaa. Okay, intaas waa isla fahnay. waxaa loo yaqaanaa alignment. waxaa jira wax loo yaqaano polling ama maxaa la yidhahdaa numbering. waxaa loogu talagalay waxyaabaha listiga ah oo taxan oo kooxda iskula socda in lagu baalkeeyo ama in lagu sameeyo. Okay, marka magacyo kale aan tusaale qoraa. waxaan qorayaa cabdi maxamed. sadar cusub aan tagaa waxaan qorayaa caasho cabdulaahi. waxaan qorayaa faarax maxamed. saddexdan magac waxaan rabaa in loo sameeyo wax la yidhaahdo polling iyo numbering. marka koowaad saddexdooda highlight-aan saarayaa. wax kasta oo aad shaqo ka qabanaysid highlight-aa la saaraa. horaan usoo baranay. waxaad tegaynaysaa midka koowaad oo bullada nooca adiga aad ka rabtaa dooranaya. hadda uu noo dooranaya sida caadiga ah. tusaale kan oo kale haddaan dooranno qaabkaasuu noqonayaa. haddaan ku laabano kan aan dooranno kan. marka midka ugu dambeeyo aad isticmaasho si automatic uu kugu doornaa doonaa. haddii lacala aad bullet taabato kii ugu dambeeyo isticmaasho yaa lagu saari doonaa. kan oo kale haddaan saarto waa lamid. marka adaa yaqaanaa. Okay, sidoo kale haddaan tagno numberingka qaybta number rasiinta ayadana hadda ay noo saaran tahay. numberka marka wuxuu noqon karaa Romanian number caadiya iyo ABC waaweyn iyo ABC yaryar. adiba nooca rabtaa dooranay. tusaale kan oo kale haddaan doorto qaabkaasuu kala noqonayaa. kan oo kale haddaan doortana qaabkaasuu noqonayaa. calaamada bracketka ku xirmi doonta. Okay, kan oo kale Romanian numberka haddaan doorto saasuu noqonayaa. Roman numberka haddaan doorto qaabkaas u ekaana.
ABC waaweyn haddaad doorto qaabkaas waa kana marka adiga waxa isticmaalaysa adiga iyo waxa qoraysay ku xiran tahay. Okay, kaasna sidaan uga gudubno waxaa jira wax la yidhaahdo line space oo ku jira paragraphka. Line space waxaa weeye marka qoraalkaada intuu isku jiro. dabcan hadda qoraalkan hoose ku qoran oo kale aad isugu dhow yahay. waxaan rabaa marka qoraalkan xogaa inaan kala fogeyno paragraphka ugu horeeya. hadda laba paragraph aan noo qoran. paragraphka ugu horeeya waxaan rabnaa inaan fartiisa xogaa kala fogeyno. markaad paragraphka meesha ugu dambeysaan tegaynaa highlight aan saaraynaa isagana. waxaan tegaynaa meesha ay ku qoran tahay space. kadibna waxaan ka dooranaynaa 2. markaan 2 ka doorano qoraalkiisa u kala sikada waa ujeedaa. sida professionalka marka waxaa la isticmaalaa 1.5 ama 1.15. 1.5 aan iska isticmaalaynaa qoraalka saas u ekaaday. dabcan isaga kan hadda way kala duwan yihiin. isaga kan ka hooseeya way kala duwan yihiin. paragraphkan iyo paragraphkan kala duwan. paragraphkan space fiican u dhexeeya. paragraphkan 0 space waaye. isaga dhan hal uu isku jiraa. okay, line spacekaas inay la fahanteena waan rajaynayaa. sidoo kale waxaa jira wax la yidhaahdo shade. shadeka waa hoos ama shading ama shade labadaba la dhihi karaa waa hoos. tusaale magacyada hadda paragraphkan iyo cashirkan oo kale backgroundka dambe waxaa ka saaran color ka saaran. qaabkaas camal uu egyahay marka. okay, tusaale hadda cashirka oo kalena waxaan saarayaa cashirka shanaad oo kale waxaan saarayaa shading aan saaraa. okay, marka highlight saaraa backgroundkana ka qaadaa gaduudka. waxaan ka dhigayaa nan waxaan tagayaa hamar kale highlight saaraa. meesha ay ku qoran tahay shading aan soo furayaa kadibna shading aan u yeelaa. waxaan ka dhigaa gray camal. okay, marka sababta ay background number colorkan iyo maxaa la yidhaahdaa shadingkan u kala duwan yihiin maxaa waaye shadingka sadarka dhan oo qabsanayaa. isaga dhan hal hoos waaye. sadarka dhan oo hal mar qabsanaa. waxaa loogu talagala qoraal dheer oo far dheer yani sadarka wada qoran. hadda paragraphkan oo kale haddaan hal mar shading ku sameyna isaga dhan highlight saare intaas soo furane kadibna nooca rabtaa saare. kaasa saari kartaa daartid qaabkaas u ekaanaa marka. qaybta dambaa waxay noqonee colorkii adiga aad saarto. okay, inta inaan isla fahnaa rajaynaa. ugu dambeyntii waxaan qaadanaynaa wax loo yaqaano laba shay oo la yidhaahdo order iyo maxaa la yidhahdaa border. okay, magacyadan sida caadiga waxay u kala horeeyaan caadi usoo kala horeeyaan. marka tusaale haddaad rabto magacyo tiro badan haysato rabto inaad ABC order u kala hormariso ama magacyada A ka bilowdo kuwa B ka bilowdo aa hormariso hal mar highlight saare waxyaabaha liiska loogu talagalay kadibna A to Z aad dooranay. A to Z markaad doorato okay aad dhehe caasho aad dabcan lagu hormariyay oo C ka bilaabato oo A ku xigto kadibna saasaa loo soo qoray. tusaale haddaan hadda magac A ka bilowdo ku darno haddaan ku darno tusaale ayaan oo kale ayaan maxamed oo kale haddaan ku darno oo hal mar highlight aan saarno okay aan dhahaynaa ayaana u hormartay. sababta maxaa waaye A ay ka bilaabataa. daas marka inaad fahanteen aan rajaynaya. sidoo kale waxaan sameynaynaa wax la yidhahdo border. border maxaa la dhahaa? border waxaa la dhahaa qoraalkaada inaad koobaabyooyin aad dhinacyada ka marsiido. okay, meeshaan kale hadda soo furayaa. hadda waxaa ii dooran no border aa ii dooran. haddaan rabaa hadda qoraalkan marka jadwal oo kale camal inaan geliyo waxaan leeyahay all border. all border markaan geliyo ayaga dhan jadwal camal aa gelaayo qaabkan u ekaanayaan. hadda ciwaanka saraa raacay waa ka reebaynaa ciwaanka. hal mar intaana highlight saaraynaa. ciwaanka hadda highlight ma saarno. meeshaan soo furaynaa kadibna all border aa ka dooranaynaa. qaabkaas uu noqonayaa marka. sidoo kale waxaad samayn kartaa borderka nooca rabtaa ka dooran kartaa. haddaad rabtid dhinacyada basaa borderka mari kartaa. haddaad rabtid hoosaa borderka mari kartaa. adiga noocii ku cajabiyaa dooranaya. haddaba all borderkaas aan iska dooranayna qaabkaas u ekaanaya. okay, inta inaad fahanteen aan rajaynayaa. cashirkeena intaasuu noogu egyahay. intaan cashir lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.